qabyaalada aan aad isaga ilaalino. yaa ayuha annaas innaa khalaqnaakum min dakarin wa unhaa, waxaan idinka abuurnay dakar iyo unha, wajacalnaakum shucuuban waqabaa'ila litacaarafuu, inaad isgarataan baan ugu talagalnay. war qof kasta xigtadaada ka ogow, maalintay kugu soo qayliso boqolkeeda ku tuur, waa intaa wax kale ma aha. waa inaad ka xidhiirisaa. way xanuunsantaa haddii lagu dha waa inaad ka ogaataad soo booqataa. yaa wax kale qabyaalada ugu talagalay. qabyaaladu waa waxa keliya ee xaqa adoo u jeeda kaa leexinaya. waa adigoo xaqa u jeeda wixii ku dhanac marsiiya. musaylama alkadaab ninka lagu magacaabo, nebinimuu sheegtay nebi moxamed oo nool sala allahu calayhi wasalam. dad fara badan baa u ololeeyey, dad fara badan baa raacay. maxay ku raaceen walaalayaal? waxay ku raaceen waa casabiyad, waxay ku raaceen waa qabyaalad, waxay ku raaceen waa reer hebelnimo. xataa qaarkood ay dhaheen waan ognahay musaylama beenlow inuu yahay, tuug inuu yahay, waxaan qiimo lahayn inuu yahay, nebinimona uma dhowa, wax xaggiisa nebinimo uga sugan ma laha. moxamed inuu saadiq yahay, runlow yahay, nebinimadiisu ay dhab tahay waan ognahay. laakiin reer rabiica beenlowgooda ayaan ka jecelnahay oon ka raacaynaa reer mudar saadiqoodii runlowgooda. maxaa bohol kurida walaalayaal? waa casabiyad. ayagoo og maxaa ka leexiyey nebi moxamed nebinimadiisoo xaqiiqaa oo ay u jeedaan maxaa dhinac marsiiyey? waa casabiyad walaalayaal, waa qabyaalad walaalayaal. sidaa darteed qabyaaladda aadaan isaga ilaalino. war qofka ku xiga hadduu qalad yahay uu qaldan yahay gacanta ka qabo. ka shisheeyaha ah ee ahludiinka ee walaalkaa ah xaqiisa iyo gartiisa siiya. war waad ila dhalatay laakiin joog dhaha. rasuulka sala allahu calayh wasalam unsur aqaaka daaliman aw madluuman buu yidhi. walaalkaa u gargaar hadduu wax dulmiyo, haddii la dulmiyaba. waxay dhaheen yaa rasuula allah, haddii la dulmiyo walaalkay waa naqaanaa oo ninkii dulmiyaan ka qabanaynaa. ka warran rasuulka allah hadduu daalim yahay, hadduu daalim yahay ka waran see yeelaa? markaasuu rasuulku yidhi gacanta ka qabo oo manci oo xajis oo waxaad ka celisaa dulmiga uu ku socdo. akhlaaq meliida fadhiisadhe walaashaa hadday isqaadqaadayd gardaran tahay. yaynan dhicin allah heer hebeli hadday dhahdo inaad xijaabka tuurato, markaad dagaalanta kadibaad waxalayso astaqfirullah qaado, marnabaad xijaabkaagii aad dib u qaadato. yaynan dhicin inaad su-aalka laalaabato. yaa reer hebel ahay marka la yidhaahdo adoonan dhihin say wax u jiraan, war yaa gardaran, yaa say wax u yimideen ma samayno. waa la galaa, waa la dhex galaa, waa la dagaalamaa. ka bacdi markii wax la hadleeyo wax diluu dhiig daadiyo ama dhib la gaarsiino, horta maxaa dhacay? xaaladda aan iska ilaalino, rabbina aan u soo rujuucno subxaana wa tacaala. rasuulku wuxuu yidhi annaasu min aadam, dadkoo dhan aadam bay ka ahaadeen. aadam ciiddaa laga khalqay aad ku dul socotaan. qoom way ka hari doonaan, aabbayaalkood ku faantamaaya, haddii kale alla agtiisa way ka liidanayaan. bahalka juclaanka lagu magacaabo ee sacarada afka ku riixee wataa ee doorshaakii carwalwaalka la yidhaahdo, kaasaa kaa qiimo badan. haddaad qabyaaladda joojin weyso, si kastood salaad u dukato iyo si kastood rabbi u caabudaba, si kastood u xijaabata adigana rabbigaa aad u caabuddo, haddii qabyaalad qalbigaagu ay ku weyn tahay, kaasaa kaa sharaf badan. saxara riixa kaa fadli badan, kaasaa kaa qiimo badan, kaasaa kaa udgoon badan, kaasaa kaa sharaf leh, kaasaa alla agtiisa lagaa jecel yahay subxaana wa tacaala. sidaa darteed aad iyo aad aan isu ilaalino, rabbigeen aan ka xishoono, aan iska dayno waxaan laysku riixahayo iyo waxaan la kala jiidahayo qabyaaladnimo darteed. waa quruna iska daaya. udkuruu nicmat allaahi calaykum, waa goormee id kuntum acdaa'an, wakhti aad cadowye ahaydeen, qabiil aad ku dagaalamayseen, qaaraan aad ku bixin jirteen. mar allaala marka la dhoo qabiil hebel ayaa dhibaato la gaarsiiyey sabcin jirteen, qaaraa laba sujuud oo shukri dukan jiray. walaalayaal maxaa dhacay xaaladda noocaa? shaydaan aadan waxba ka ogan qofuu dilay iyo ku kaloo la dilay ayaan sujuud shukri u dukan jirnay mararka gobol ka mid ah. qolaa ku riyaaqi jirtay oo ku farxi jirtay, qolaa la arkay salaada gudaheeda ugu ducaynahaya qabiilkooda qabiil kale la dagaalamaya. magaalaa lala dagaalamaya walaalayaal. subxaana allah, aan rabbigeen ka xishoono, aan daacada ilaahay ku dadaalno.